Welcome to Mogadishu Cooking, the kitchen for Somali delicious food. Kitchada cuntada macaan Soomaalida. Bismillah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan idin wada salaamay dhammaantiin akhyaaray kusoo dhawaada Muqdisho Cooking. Dhammaantiin waxaan idin hayaa mahad celin aad iyo aad u weyn. Intii subscribe-ka ay samaysay iyo intii like-ta ay saartay dhammaantiin waxaan idin leeyahay gacmo furan kusoo dhawaada. Walaalayaal maanta waxaan inoo hayaa sabaayad. Sabaayadaas maxay ka kooban tahay? Walaal waxaan ka sameynayaa daqiiqda plain flour-ka ah. daqiiqda aan lahayn fixisada ayaan ka sameynayaa. Marka madibadaas aan soo qaatay ayaan iminka isugu keen dardaraya insha Allah. maxaa la yiraahdaa iminka waxaan ku daray daqiiqdii, waxaan ku darayaa maxaa la yiraahdaa cusbadii ama milixdii, biyo yar oo diiran oo qandaca ayaan ku daray walaalo. Kabacdi waan xashayaa. Run ahaantii daqiiqdu sabaayadu waxay ku wanaagsanaataa in daqiiqda si fiican la isu dhexgeliyo. haddaad rabtid sabaayad wanaagsan inaad sameysid waa inaad ilaa 15 daqiiqo aad xashaysid. 15 daqiiqo marka daqiiqda si fiican isu dhexgelisid aragtid inay soft tahay ayaad ku goosanaysaa. kabacdi maxaa la yiraahdaa waad la waxanaysaa. markaad la waxdid waxaad sameynaysaa saliid dhexda ka marinaysaa. khalaas marka dambena waad la waxaysaa. inan kasta oo Soomaaliyeed way taqaanaa sida loo sameeyo cunto karis. tani ma aha cunto in la isbarayo, waxa weeyaan is xasuusin. qof walba jikadiisa si gooniya ayuu u samaystaa. marka maxaa la yiraahdaa sabaayada walaalo run ahaantii haddaad rabtid sabaayad qurux badan aad sameysid ama dhuxul ku sameey ama gaas ama koronto hadba kii aad haysatid aad ku sameynaysid, dabkaas walaalo waa inuu u gaaban yahay, uu meel dhexaad yahay, dabkuna aanu aad u dheerayn aanuna gaabnayn. sabaayadaasi markaa dhinac walbana way kaaga bislaanaysaa, laftana way ka bislaanaysaa. laakiin dabkaagu hadduu fara badan yahay sabaayadu way gubanaysaa, dhexdiina kama bislaanayso. sabaayad qurux badan haddaad rabtid oo shaaxida sidaas aan kugula taliyay qaado taladayda. walaalayaal iminkana ila daawada insha Allah sida aan u sameyn doono. maxaa la yiraahdaa birtii ayaan waxaan soo saaray maxaa la yiraahdaa sabaayada markaad dhinaca u dhigtid oo dhinacaas xoogaa yara qalalo ayaad dhinaca kale u rogaysaa. dhinaca kale markaad rogtid aragtid xoogaa yar inuu soo casaaday ayaad saliida ku shubaysaa. waadna ila arki doontaa walaalayaal ila daawada sida aan u sameynayo insha Allah. gacantada laga qilaanshayna loo dhigine dalxan subagaadhayo karuurdhayladiyo jidhka dhigta xabagta laga soo midhaqa dhuumanta dhadhamiyey kuma toorsan karo dhowrta dibadeedee dhexdiisaan ku noolahnaya jirgudnaydiwe dhalintaan waxaan barahayaa dhaqamadoodii sharafteena wixii dhuminayaa handhaafaleeyahay. iminka sabaayadina waa inoo soo dhammaatay, waan soo kariyey. markaas sabaayada qof kasta wuxuu jecel yahay ayuu ku cuni karaa. sabaayadu waxna ma diidi karto. salad haddaad u baahan tahay, yacni hilib haddaad rabtid, caano haddaad rabtid garoor ah, haddii aad u baahan tahay misir, ay aad ku cuni kartid oo dhan baad ku cuni kartaa. anigu markaa iminka waxaan soo diyaarsaday caano garoora iyo sonkor iyo malab. qofkii sonkor rabaa sonkortu ku darsanaya, qofkii malab rabaa malab ku darsanaya iyo koob shaaha. marka qof waliba yacni siduu jecel yahay ayuu isticmaali karaa. sabaayadani wataas waxay noqotay softi, aad ayay u jilicsan tahay, wayna maxaa la yiraahdaa wayna inoo casaatay maasha Allah. waxa laga dhexlay diintayada maaha dhalanteeda dhaxalkayda iyo intaas waxaa ku dhan sabaayadii. waxaan filayaa walaalayaal inaad ka faa'iidaysataan insha Allah. wixii tala iyo tusaale ana waa dhinaciina. nabadgelyo. is arag dambe xiisana.
Thank you for watching Mogadishu Cooking. Please don't forget to subscribe, like, share and comment. maanta adduunka uga muuqata